أنا محمد حمود وحان أشهد وديبني محمد ولي رائح محمد حسن قرورب محمد فارح. qoyska maxamed maxamuud oo ka tirsan jufada reer ow maxamuud ee beelweynta dagoodiye ayaa kulan ballaaran oo yeesheen ku shaaciyay inay si buuxda u taageersan yihiin musharaxa kursiga galbeedka wajeer doorashada xigta ee 2027 maxamed weli garoore waxgaradka cuqaasha iyo hooyooyinka qoyska oo madasha caleemasaarka ka hadlay maanta ayaa isku raacay inuu yahay hogaamiye karti hufnaan iyo aragti fog leh oo adeegida bulshada galbeedka wajeer waxay hoosta ka xariiqeen inuu yahay qofka ku haboonaa ee dadka deegaanka galbeedka wajeer ku matali lahaa aqalka baarlamaanka sare ee dalka isagoo door muhiim ah ka qaadan doona horumarka nabadda iyo mideynta bulshada galbeedka wajeer waxaan rabaa ninkii gogosha dhigtay inaas qaadiin keetiga la geeyo keetiga wax badanaa ka horan dad badanaa socdo meesha loo socdona waa derbi xoog badan waa maxamuud waa mantaan waa ummadda kale oo dhulka fadhida oo reer wisi meesha keetiga laga rabaa intee westi waay westi yaa jooga majuuraana jooga dogoodiyo mid ii raayahaa jooga ilaahay mantaanaa jooga maxamuudkaa jooga ma 7 ama 8 raayood baa oo ka mid yahay ajuuraanka ayaa joogaan inta keetiga laga rabaa intee waa inta ayada tii ideed yaa gaarsiina annaga inaan anaga u guntano oon intaas geyn waxaan rabnaa inaan ninkii maxamuud ahay soo qaadna oon ku caleema shubna oon ku caano shubna oon maxamuud u geyna tolkiina horey u badayeen wiilisha waa badiyiin asagana nasiibkiisaas ka qaada maanta waxa waaye jufadii hoose waa soo qaaday maantana gogoshaan waxaa loo fidiyey tolweynihi maxamed maxamuud walaal ninkaas meela qaadeen ma qaadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inaad asagana waafajiya meesha noo khayrka badan ilaahay asagaa garana kursigaas wajiha west ayaad ninkan wax badan hamiyey sideedaba yacni qofka bini aadan inaad wax hamiyana ceeb ma ninka yacni hadda ugu jira baarlamaanka tarbaj xuseen cabdibarre ninka la yidhaah kolley siyaasadiis waa la socotaa inta yacni waxaa waaye 97 as hamiyey waxaa waaye markii ugu horreysay baarlamaanka intaana yacni hamigiisi ilaahay waxaas ku garab galay markii dambe inaad ku guulaysato marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa tolkeenna ninkaasi daacadnimo ah oo dhabnimo ah oo kal iyo laab ah inaad u soo qaado dibiga loo celiska oo galabtii loo markay soo galbanay cilna maxaa lu reebaa xasannimo waa xasannimo looda inaad waraabaa ku lahay looda inaad waraabaa ku lahay waay maqli aniga waxaan leeyahay walaalayaalow ninka nooga horreeyey haddaan nahay maxamed maxamuud oo gogol noo dhigtay oo diinamaan rabnaan dhahay waa ninkan waana qaadnay ninkan maxamed weli waa qaadnay ha jiro ha jooga maxamed weli waa qaadnay wixii siyaasad ah qof iyo 2 iyo 3 iyo madax laabo meel ku maqan waa la arkaa laakiin waxaa muuqato meeshaan cid inay dhanta maxamed maxamuudnimo waa ku soo qaadnay maxamuud oo talweyne aan u wadnaa mataankiisi kale aan u wadnaa wajeer wisti aan u wadnaa waxaan baryaynaa talweynahan aan isagoo oo noo dambeeyo oon u geyn doono idinkan inaad nala geritin oo wiilkaad nala qaadin waa qaaday maxamed weli arrintan arrin aan ka labaysanna maaha dadka xoogaho wax baa laga dhadhacsinayaa arrinta walaasha inoo socoto kursigeeda ayaa laga dhadhacsinayaa intaan waxay diyaar u yihiin walaasha inay kursiyaan midna lama maqla inta kaloo wax yar duur ku jiraana halka sana ii barka wixii ay muxumaha ka dhamaysanayaan ka soo dhamaysteena aan lagu soo biireena ani saan aan leenahay
afan soma anaga ka soo dhameysana waxba nooma dhina marka ka soo dhameystayna aan ugu soo biireena qabiilka aan wada qabana aan wada ogaansanana maxamuul waa ku soo qaadnay waana kula shaqeynayna ilaa daqiiqad u shaqeysa u dhameysay insha Allah farto kale fool ma dhaqdo godkii walaalka waxaa la qabriga walaalka hadaa qalluucisid kaadana qalloocan ma fahantay marka inta wiil dadad la leefileedin idinkoo kiina la leefo waxay indhaamo ma laha markaan wiilishaan kale mar walba baarlamaanka la geynaa dabada lagama dhalin kiinana feeraha lagama dhalin ma fahantay marka walaalo soo dhawaaw waa ku wadanaa markaan dadkaan madaxdan ku tashanaana maxamed maxamuud wiilkooday wataan daneysta maxamed maxamuud ma ku tashan kartiin maxamed maxamuud oo mid oo hal wiilkooda maxamuuliyay wataan qabiilkiini cidiini gabdhiini ku mashquula annaga nagu mashquulina intana soo ajiibtana way mahadsanyihiin maxamed wili waa tagaa maxamed maxamuudaas u tagaa dadoodii weynaas u tagaa reer wajaar weystaas u tagaa ninkii nacabow naaqus waa naaqusaa ninkii nacab ha jeclaada ama ha nacbaada waa naaqusaa ninkii nacab igaraa lahada codkayga kasta waa midkaa ahaya soo dhawaaw meeshimuwa waa ku qaadnay waa qaadnaa meela qaadeen maxamed wili meela qaadeen dhanka kale musharax oo isna madasha ka hadlay ayaa ballan qaaday inuu wax badan ka bedeli doono galbeedka Wajeer haddii uu ku soo baxo kursigaasi musharaxa oo si hadlaya ayaa baaq dadban u jeeday xildhibaanka haatan talada haya Yuusuf Faarax Muliro mahad iskale ilaahay isu kaana keenay maanta si nabad ah waxaan mahad aad iyo aad u weyn oo aan ugu celinayaa odayaasha sharafta leh ee arrintan si wanaagsan u soo agaasimay waxaan mahad u celinayaa dumarka haweenka shaqadan iyo isku dubaridkan si wanaagsan u sameeyey waadna sharafteena Allah haydi sharfo waxaa mahad iska leh dadka dhalinyarada ah oo nala shaqeeyey in arrintan ay hagaagto waxaa mahad iska leh dadka aqoon-yahanka oo nala shaqeeyey oo hawshan si wanaagsan oo xigmad ay ku jirto u soo qabtay waxaan si gooni ah iyo si guud haddana mahad ugu celinayaa tolweynaha aan ka dhashay beesha maxamed maxamuud aad iyo aad ayay noo soo garab istaageen siyaasadda boqolkiiba boqol lama hela siyaasadda inta badan boqolkiiba boqol lama hela waxaan aaminsanahay inta maanta na soo ajiibtay iyo inta garab noo noqotay inay ka badan yihiin boqolkiiba 80 intana garab taagan inay ka badan yihiin boqolkiiba 80 haddii aan soo gudagala arrinta Wajeer West iyo kursigan iyo tartankan Wajeer West waxaa haysto arrimo badan oo u baahan tahay in wax laga qabto haddii aan dib ugu noqdo taariikhda Wajeer West allaha u naxariistan in la yiraahdo Axmed Khaliif oo aad iyo aad nin oday ah oo xagga culimada iyo diintana ku wanaagsan markii uu ka dhintay waxaa ka dambeeyay 4 qof nin walba wuxuu iska lahaa ciladiisa laakiin mid walba midka ka dambeeya waxaa lagu dooranayay in laga bedelo kii hore mid ka fiican in la keeno hadda waxay taagan tahay meeshii aan noqon lahayn dad khibrad leh nin walba wuxuu soo qabtay waa soo qabtay qof aqoontii iyo experience-kii iyo wax kasta leh in aan ku bedelana ninka walaalkeenoo hadda ku jira taas oo ah wax sharciyan ah annagoona qofna aanan meel marinaynin dhibaatooyinka jira Wajeer West waxaa ka mid ah arrimaha oon wax ka qaban doono haddii ilaahay raalli ka noqdo arrimaha waxbarashada iyo baasariska arrimaha caafimaadka arrimaha wadooyinka arrimaha dumarka iyo dhalinyarada arrimo badan ayaana hor yaallo oon insha allahu hadduu ilaahay raalli ka noqdo aan wax ka qaban doonaa midda kale hogaaminta ama hoggaanka
ma aha wax shakhsi ah ama qof uu sharaf ku raadsanaya waa adeeg bulsho waxaan diyaar u nahnay inaan u adeegna bulshada Wajeer West hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaa jirta afka ingiriiska waxa lagu yiraahdo zero sum game waxa waaye yaanan kulligan waxba helin marka dad ayaa waxaa jira aaminsan in haddii qof walaalkiis wax helo asaga uu wax helaynin waxaan ka codsanayaa walaalahay Maxamed Maxamuud aaminsan haddii qof walaalkaa uu madax noqdo inaad adiga wax waynaysid in aadan wax waynin doonin hadduu ilaahay yiraahdo ninka kursiga ku jira oo walaalkeen ah waxaad wax ku heli kartaa in aad ka shaqaysid midnimada iyo wadajirka ummadda haddii aad ka shaqaysid kala qaybiska iyo dadka inaad kala qaybisid adigay ku taallaa midaas lama fiicno Mheshimiwa Muliro waxaan ka codsanaynaa shaqooyin fiicanna waad qabatay ha iska halaynin recordkaaga wixii kale election iyo cod baa lagu kala bixi doonaa haddii ilaahay yiraahdo marka ugu dambaysti waan aqbalay qaadista ay soo qaadeen sharafta ay sharafteen waxaan ballan ka qaadayaa haddii ilaahay yiraahdo inta joogta iyo inta maqanba inaan u adeego haddii ilaahay noo fududeeyo waddo dheer naga horeyso Maxamuud ayaa naga horeeya Mataan ayaa naga horeeya waxaa naga horeeya ummado badan oo kale in aan kulli haddii ay noo suurta gasho insha Allah ballanta aan inta ku qaaday maanta in aan oofin doono adinkana waa mahadsantiin ducadiinaan u baahannahay gabdhaha wada shaqayntiinaan u baahannahay dhalinyarada waxaan u baahannahay adeegiina inaad wax nala wada qabataan aan wadadaas isla marno Maxamed Maxamuud dhamaantiin maxaa dhugtiray maxaa dhaadhaa mayo maxaa ka dhigay dhagaal maxay isu dhowri karin labadii wada dhasheen maxaa dhiigeenna mareer loogu saamisay maxaad u kala dhuu mataan maalinkay dhabtahay maxaa idin kala dhantaal dhigmi hadalleen ugu dambeyntii kursiga galbeedka Wajeer ayaa u muuqdo mid aad lagu baratamayo Maxamed Kulmiye warbaahinta Bayan TV gudaha ismaamulkani Wajeer